ماذا غيري ويلك علامته نولي ولكن أنا لا ما يعني ويلك علامته نولي يهي أنا لا ما لا على علامة يا أنا بني آدم مية ويلك لا ما أنا بني آدم مية يعني waxaan ku hadlo walaa magaranahay waxa igu daran maamada gabadh la taagan la fadhido gabadh walaashay ah waxaan ka xanaaqaa ku sheegaa wallahi oo billaah wa tala aan la yaabay xitaa waxay tiri wuxuu raxawin waa wiilka laakiin MJ uu sheegin jiray ergaas waa ka xanaaqay baayis you know aad aan ka xanaaqay wallahi waxaan ka xanaaqan way tahay حسب فريق صراحة ما كان قادر هذا ركي ده تاير هذا ما كان قادر تعمد كورن هذا عيار تسبال رأينا لك لك عتقو you can any creative and أنا هذه long time قلنا بس أمي شوك سلام بعد معنا ولا شيء واشنطن ستيت أكو سلام كوتا جناي وكاقاد walaalkay mali maqla horta زايد أكو مقلع باي horta aniga waa arkay sheekadan laakiin waxaan inay waxba jirin waa la ogyahay inaad dadka ka dhalatan waa la yaqaanaa reewaashto haddaan nahay waa ku wada naqaanaa meelaha tiktok wixii la sheegaya la sheego nin laan dheeraa tahay nin qalbi fiicanaad tahay family manaad tahay xataa dadka buuqa iyo ku jira matigi tiktok waxaa usoo gashaa good things you know waxaa like love iyo support maxaa la dhahaa baafisaa so haddii aa qof xunaanta ahaan lahayd yes like qof fiican aa tahay I don't know why dadku always dadka fiican lagu dhagan yahay tiktok ba anaga support you abowe waxaasna ha u bixin ma garatay daayar cali sunna waa inuu naga soo garbaxaa anaga dhan uu soo galay amish waa mahadsantaa baa ninka la dhaho eji ama xasan fari aniga hal mid baan kugula talinayaa walaalnimo ah halka mid aan kugula talinaya waxaa waaye maamadaas kusoo sheegatay gabadha reerka aad u daruufaysnaayeen inaa caawisid dad advantage laga qaatay bay u ekaayeen dad masaakiin oo looga faa'iideysta daruufta u ekaayeen qofka maskiinka daruufta waa looga faa'iideysan karaa xilli adagna waa lagu jiraa dad waxaa jira ehelkaaga oo dadka kuugu dhow oo xataa gaajaysan oo adiga xataa waxa weeye xogtaada dad kale la wadaagaya xilli xun baa adduunka ku jiraa dadkiina waxa weeye aad bay u wada gaajaysan yihiinoo qofka dadka kuugu xigaa ku gadanayo xogtaada dad kale u geynaya marka aniga halka mid oon walaalnimo kugula talinaya waxaa weeye faamiligaas ka warhay caruurtaada kuugu barakoobaysa reerkaaga kuugu barakoobaya adaa ku barakoobaya waa family advantage laga qaatay oo laga faa'iideystay oo daruufta looga faa'iideystay oo xoogaa yaro xataa gabadha waxaan dhageystay aniga hoos ka dhahaysa xasanaan raadinaya xasan gabadha yar baa maamada ku dhahaysa xataa maamadu waa khabar maafish waa dhageystay marka qof kasta oo social mediahan platformkan akhlaaq iyo edaab ku jooga oo waxa weeye dadku ay aad u taageeraan hadda 2 akoon baa leedihiin adiga iyo xaaskaaga soo ma labadiina akoon meeqay marayaan min 2 milyan 200 waaye midna waxaa waaye 1 milyan iyo waxaa waaye 900 intaana ku jiro dadka ma caydaan intaa meesha soo fariisataan adiga xaaskaagu qabiilo ma caydaan waxa dadka la cayrsanayo dhan waa dadka wanaagsan oo meeshan waxa weeye wanaagga la joogo ixtiraamka la joogo walaalnimada la joogo ehelnimada la joogo way dadka la cayrsanayo waxa cayrsanayana waa dad mugdiga ah oo mugdi ku jira oo xaasidiina oo qofkii wax yaroo libina lagu arko aan loo quurayn marka Soomaaliya haddaad aragtid qof jooga oo la soo riixay oo fuusta ah haddaad aragtid aniga halka mid oon ka codsanayo waxa weeye caawi qofkaas garab istaag waa qof dhiban oo la toojar gareeyay oo daruufta looga faa'iideystay waliba maamadaas hadda ku soo sheegatay waa hooyo Soomaaliyeed waxay tir wiilkaaga waaban hooyadan baa taa aniga maca Omar Barbar xataa adaa dhalay ku dheh soona fariisi maamada halkan keen wallahi xaaladeedana waxa weeye hoos u eg habeen dambe maamada halkan keen hal raadiyo hooy maxaan kuu qabanaa dhe anigana iigu yar waan kuu imaanayaa
kulligeen baa dhahayna hooyo maamo maskiina oo daruufta looga faa'iidaystay oo ayadii reerkeedaba la bahdilay oo social media inta la keenay xogaa yaroo lacag la siiyey dadka waa iska dhiban yahay marka aniga my opinion waxaan ku leeyahay maamada maantana lacag u dir berrina markaad soo fariisiiso annagoo dhan baa u imaanayna waa wareysanaynaa xaaladeeda hoosaan wareysanaynaa wixii ka dhidhiman oo dhan baan isugu toosinaynaa maamada maamooyinka laguma ciyaaro hooyo weyn weeye laguma ciyaaro hooyooyinka daruuftana loogama faa'iidaysto horta niyo cumarow fursadan horta iga qaabil inta ka hor intaan kula soo galay lifeka baan kula kaftamay horta nin la janana wataan adeerkeena waa tahay mar walba beerka ogsooni horta karaalow ani adiga qaadqaashada waa qaadanay waxaa tahay la janaa tahay qof walba oo Soomaali waa ku taageeraa anigana waa ku taageeraa ilaahay ka sareeyo horta waa maadsantahay qof loo yaqaano waxaa tahay inuu maaragtay dadka wax u qabto ayda neceb oo kaftanka jecel oo weligii allah Soomaalida ku dhex jiray anigana waxaan jeclaan lahaa maamadaas berito intaan soo qabanno aan qolka keenno aan la hadalno adiga weliba adiga aqaayo amish walaashay Washington is degannahay long time aan xushmad naga dhexaysa we have unwavering friendship ani ayada familkayga marka waxaan rabaa berintaan nimaano aan soo qabanno maamadaas oo dadka walaalahay ah ee tusaan wax aniga weyn arkay waxay tahay maamada qabiilkeeda in lagu cayaaray taasna aniga uma arko fani uma arko maamada qabiilkeeda qabiilada Soomaalida ugu fiican ugu sharaf badan ee ka mid tahay hadallo badan waa xiirinayaa ma dhigi kari laakiin qofka u malaynaya raxaweyn inuu qabiil laga carara u yahay raxaweyn dad lagu cararo waaye dad sharaf badan waaye dad wanaag badan waaye taasna qof walba ku fadhiistaan ku seexdo cumar ku soo cadar macane dad laandheeraayo sharaf leh oo karaamo leh aniga waxa weeye xidid baaban la ahay oo digl iyo mirif weeye islaantaydu waa digl gabar dabaraa baan qabaa raxaweyn waxa weeye dee qabiil cidi ka cararayso oo cidi ay diidaysa maaha waxa weeye qabiil Soomaaliyeed oo la wada jecel yahay oo sharaf leh oo karaamo leh marka aniga waxaan kugula talinayaa gabadha maamada iyo wiilkii wixii reerkii meesha fadhiyay oo dhan inaad waxa weeye cimaamado lacag siiso ood soo dhaweyso ood sharafto oo aad boorka ka tirto maamooyinka markii boorka lagu tiro oo la bahdilo daruufta looga faa'iidaysto ninka ragga uu garab istaagaa wuuna soo qaadaa waa gartay korba u soo qaadaa marka hooyadaas kor u soo qaad annagoo dhanna kor baan kuula soo qaadaynaa mana raallina kama noqonayno hooyooyinka in daruufta looga faa'iidaysto isug fuustadii socoto waatana daar calso waa kana sug eje anigu waa kaa diriyaa adam kula hadlaa ninkan hadal kulma hadli karo aniga meesha adan kugu imid si sharaf cumar ani igu dulqaado adeer macaane kula hadlaayo aniga I talk to you adan kula hadlayaa tram iyo muuji waay qof hadduu degaasaa degaayo ku soco marka maamadan baan ka hadlayna xaalkeeda waxaan rabaa maamadaas in aad garab istaag u muujiso aad garab istaagto ninkan horta midaa u sheegaya dhalinyarada horta waxaan rabaa maamadan berito inaad ergacaliyo ani adis waqti baan nahay amiishaan nambarkaaga heeso soo wacaya haddan dhalinyarada waxa u sheegi karto si sheeg ninkaas in adigoo joogto ka hadla ma rabi inaan maaragtay marka adig degtee dhowtaan ka hadlaynaa afiisa laakiin waxaan rabaa maamadaas inaan qabso u soo keenno aan la hadallo Somali reactionist maxaa ku darsanaysa adeer macane صادق ورنو اجي فاميلي iyo Amar Barbar Amisha iyo Mari dhamaan waan salaamay asxaabta qolka daawanaysa niyo ani hadda dhawa fiidiyowga arkay markii qolkaagan soo galay topiga marka kulli waxad maamada ah hore uga tiri ma aanan maqleenin laakiin somehow niyo Soomaalida ayadoo dhan isku wagaag oo dadku bilaadanka isku ekaan karaan somehow waxaad moodaa maamada xogaa sanka indhaha
iyo afka ina xoogaa inaad iska matalaysiin xoogaa matalaydhiin sheekada waa meesha maama AJ family reality-ga saxda ah la rabaa moogtahay aniga hal su'aalaan qabaa muxuu ahaa maamada wax aqoon ah ood u leedahay ma jirtaa horta beriya maamada soo qabanayna maamada markaan soo qabanaan ka hadlaynaa maamada iyadoo joogta halkan ka hadlan arma haddaan ka hadlo waxay noqonaysaa keligeena hadlay ma fahamte okay no very enough markaas kala beriya wada sugayaan maamadu waa ishafaaday xitaa foreheadka indhaha sanka afka famita maamada soo qabo qofkii kusoo xasuusta oo kusoo sheegto Soomaaliya jooga cidii doontaa hadda qofkii kusoo xasuusta soo dhaweyso ma dad baa la diidaa maya diidaa walaa ma dad baa la diidaa soo dhaweyso maamada waxaad tiraahdaa hooyo biilkaaga aan kuu qorayaa halkaasaad ii deganaanaysaa joog dhahooyo boorkana ka tirta وكسي سلام يا حنو مالين يا dadka badanaa waxay soo qorayaan AJ family AJ family hal su'aal kala qabaa haddii lacala maamada wax kasta laga dhaadhicin waayo balse only kaliya ay ogashahay in DNA test macnaha iska qaado adiga ma noqonaysaa DNA test inaan gasho aw bariya ka hadlaynaa baxay hor dhacaysaa adiga barita ka hadalno ما لا تدوكنا قفا في داونيسو تدوكنا قفا إلهم بأفر كل حتى عداوته وحي قال لي ما راح يداونيسو بريمر ما تما دا كذا قال لنا أدينا هذا أنا قف هذا القداية وحال بو قصر أقاطع أنا وما قاعدين دد بأم لنا هنا عن يقول سعود أنا أم لنا هنا قف كل هذا لا يعطي ما يرون والله أنا كوكو أنا صحيح أنا كثير إنه حقيقة ده يقول معناه ما طلب يعني فاهم مثلا واحد هذا إمقلا إنه كم غشي بس مش مصفر أنا كهذا like waxaan isada aan arabo inaan ku weydiiyo u sabno sixirnimo loo su'aal ku weydiiyay su'aasha hadda DNA ga xataa ku weydiinaa sixirnimo loo ku weydiinaya it's not a big problem hadana tomorrow maamada soo qabanna Brianka wada hadlayna warjiro wax kaaro maamadan soo qabanayna maamadan soo qabanayna maamada soo ka khaldan saadiq hadda adiga ninkan nuuri ahaan ba waraysanaysaa ma fuustada wax ka riixaysaa ma hadda foreheadka maamada week يا وتير عمر وصحاو أنا فوزت من ريحايو لكن مع مدى صورك أنا والله ما لو هطلع ما جوجن هذا اللي كان والله ما مقل only كلي فيديو هتقدر ده وريجا أركي فيديو كان داودي مع مدى زوما سوقلي نكان زوما سوقلي وأسكو فيري حاجة عادي أسكو دويين سانكا عندها بشمها أفكا مفهمسها نجيب كحتى وايس مثلا marka qolkii hore ka soo galay qolkii markii aan soo galay ninkan su'aasha oo clear ayaan weydiiyay ma ahan su'aal ma maartay ma riixaayo isku filan oo salaam boqorada ma riixaayo fuusana ma riixaayo ninkan saaxiibkeen nin fuusta ku riixaayo maahi qofka de si xorriyad la hadlaayo ma fahanti ma raba AJ clear inaan maqashiyo waxa asagoo dhagiisa raba inay maqlaan ma fahanti أو intaas igu ekee oo hadalku ku cadeeyay waxaan ku dhamaa madalka Britain maada imaana in adan hadal goomi in hadalka xanaaqan mihi aqoonta waxay tahay qofku markuu aqoon leeyahay waxay tahay patience badan uu leeyahay he has no reaction for the like waxa qofka ka imaanayo marka saxar la abay soo dhow Maria AJ inaadeer gacaliya waa ku salaamay adiga dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo meesha saaran inaadeer warta si khaas ah adiga ku salaamaya team daahir iyo fuustooyinkooda oo ma jirteenka si aad moodid jirteen horta daahir cali soo aad iyo aad buu jecel yahay laakiin waxa ila tahay ilaa iyo hadda inuusan fahmin oo anagu kaftan iyo fuustaba inaysan daday wax ka qaadin inaan nahay adigana fuustada yartaayo caatadaayo geesaha ka daroosha waxaan leenahay waxba kaama dhimayso inaadeer gacaliyo maamadaasna laga danaysanayo WhatsApp-ka laga soo riixayo sawirada inta la soo jarjaray loo geeyay casharka la soo xifisiyay waxaan leenahay hooyo macaan madaxa saaran tahay meel kasta adduunka ka noloshayna hooyo Soomaaliyeed un baa tahay hadduu ilmo ka maqan yihiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in wiilkaaga ilaahay ku soo celiyo laakiin meel xun bay ku geeyeen waa ka danaysteen waa kugu danaysteen qol un bay kugu camirteen views un bay kugu raadsadeen laakiin u imaa baan ku leenahay AJ-na hooyadiis labaad baa tahay wax kasta u baahan tahay inaad ka heli kadhaa inaad intaasan ku soo qabsado ku salaamay adiga dhammaan dadka sidoo kale baa macna inaad yartay soo dhow Maria baa ku soco
daahir calasow wallaahi wax buu turtuurayaa kowdha qolkayga xataa wax buu ku dhex tuura ma jeerteen ah kolay uma malaynaya daahir calasow inuu maaragtay khayr sheegayo kowdha markoo ilaa khayr dhigo oo daana aa lagu dadaal daana wax kale ku dhahay malaha soo dhawaa baay macaan soo dhawo walaa shaqaale adaa mudan amish maxaa leeda baay horta maxaa la dhahaa sadaqo walaalow waxaan this is serious accusation ma garatay waxa aa sheegaysa horta waa qalad waxaana kaftan magala maamo maskiino lasoo isticmaalay intaa meeshan lasoo fadhiistay DNA waxaas waa qalad ma garatay AJ familkiis waa la yaqaanaa magaaladana magaalo weyn waa siyaar waa la yaqaanaa abo fuusadaas ka bax adiga bas hadda kor waxaa la gabar aan tirtaalna ma garatay والله صادق واقع الشوذ والله كفتن كم شيء جاي واقع الشوذ واقع الشوذ أنا وحيد تاي أسجى ويقانا صادق هذا الكاس ما لا عيد عضي كمفيرين لكن وحرب متقانا إن next time إلها ليس ساقو حشمي has to be mutual respect كوسع AJ family نيو هرت نين هذا الكاس وده نين سوق قاضي فاهمسا nin ana dagaal igala dhaxeeyo ma tihid mise nin ma taqaanaa dee hadal aan ku xumeenaayo mise hadal xun dee aan oranayo ma tihid nin saaxiibkaya tahay taasina ogsoonaatid waaye respect badan naga dhexeeyo walaal meeshan aan wada joogno laakiinse dee aniga waxaan ka hadlay qofka soo ma lahan soo fikri ma lahan opinionkayga ka hadlay sadaan wax u arkun baan ka hadlay aniga kumaanan caayin kumaanan aflagaadeenin wax caayana kumaanan odhan only clear horena hadalkayga waxaan kaaga yiri بالعادة كوسكو إكان كران تطبطن أسكو إجواء أجيران بس معمدة أديك واسمتشين بانكوير مفهمي سا استيلنا تاس بالله هاي واسمتلي كران ده زمين هويدا واي كمان دهين معمدة هيدا أنا واحد كحناق سنة حناق ماشي مية لو واحد لا يبنا حيتاي معلوم والبوقف أو مارتي أو قبيل لا هل قبيل سجسوا دقة يا عنا سجسوا دقة ذاتي كلا تو حتى أو قبيل كلا كل شيء حتى ما فهم يعني واحد ماشي كجرو وحرام أنا نيشوا إيه جورتنا قبيل ما هن nin Soomaali mudkii galaaw macaan waxa ka qeyla ka yeerayso qabiil horta dadka isku aadaya meelaha la aadaan waa fahansamaan aniga waxaan ahay nin Soomaali ahay qabiilkayga madaxu ii saaran yahay hadduu madax ii saarnaan cirku ii saaran yahay Soomaali walbana waa xushmeeya laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego maamo hooyaday oo kale ta ah oo weyn oo duq